maalintii u horeysay ee dhageysiga dacwadda madaxweyne Trump. Dimuqraadiyiintu waxay isku dayeen in la soo ururiyo caddayn muhiim ah oo ku saabsan baaritaanka in Trump uu saameyn ku yeeshay gargaarka uu Koongareeska Mareykanku ansixiyay ee Ukraine uu ku marti qaado shisheeye faragelinta doorashada 2020 waana ay ku guuldareysteen. If not, the yeas are 53, the nays are 47. Chuck Schumer waa hogaamiyaha laga tirada badan yahay ee sanadka. If Americans start believing that foreigners can affect and elect presidents or senators or governors, if foreigners can interfere in elections and determine the outcome instead of the American people determining the outcome, our democracy is vastly eroded. Haddii ay dadka Mareykanku bilaabaan inay rumaystaan in ajaanibta sida la filayo ay dooran karaan madaxweynayaal ama senataro ama guddoomiyayaal gobol, hadday shisheeyuhu faragelin ku samayn karaan doorashada oo ay go'aansan karaan natiijada halkii ay dadka Mareykanku ka go'aamin lahaayeen, dimuqraadiyadeena si weyn ayaa loo baabi'inayaa. Dadku waxay bilaabi doonaan inay lumiyaan kalsoonida ay ku qabaan doorashooyinka. Jamhuuriyiinta haysta aqlabiyadda aqalka sanadka ayaa joojinaya isku dayadaas iyaga oo ku doodaya in dacwadihii xilka xayuubinta ee madaxweyne Bill Clinton ee sanadkii 1999 ay noqoto hagidda iyo tilmaamaha la raacayo, sida uu sheegayo Senator Mitt Romney oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. I think it's important to hear from John Bolton and perhaps other witnesses, obviously from both the defense as well as the prosecution. The right time for that vote, that decision, was after the opening arguments. That's the way the process. Waxaan u malaynayaa inay muhiim tahay in aan dhageysano la taliyihii hore ee amniga qaranka John Bolton iyo laga yaabay markhaatiyaal kale difaaca iyo sidoo kale dacwad soogista. Waqtiga saxda ah ee codeyntaasi ayaa go'aankaas waxa uu ka dambeeyay doodaha furitaanka. taasi waa habkii loo maray hanaankii lagu fuliyay dacwadii xilka qaadista ee Clinton. Dariiqa ka fogaanaya waxyaabaha muranka dhaliyay ee dhinacyada ku lugta leh nidaamka dacwadda xilka xayuubinta ayaa sheegay in xulafada ugu sarreysa Trump ee Capitol Hill ay taageersan yihiin. Mitch McConnell waa hogaamiyaha aqlabiyadda ee sanadka. Can the Senate still serve our founding purpose? Can we still put fairness, even-handedness, and historical precedent? Guurtidu weliba u adeegi kartaa ujeedkeena asaasiga ah. Weli miyaan sii wadi karnaa cadaalad, xitaa gacanqabasho iyo tusaaleyn taariikhi ah oo ka horreysa rabitaanka halka dhinac ee maalintaas. Codbixinta maanta waxaa ku jira jawaabo. Inkasta oo xisbiga Jamhuuriga ee haysta aqlabiyadda sanadka Mareykanka ay ka dhigan tahay in Trump uu ku leeyahay faa'iido siyaasadeed maxkamadda ayaa ku guuldareysiga in loo yeero markhaatiyaasha waxay leedahay cawaaqib xumo. Paul Berman-Sheff waxa uu ka tirsan yahay dugsiga sharciga ee jaamacadda George Washington. I think it's absolutely necessary that the Senate pursue a real trial, that the senators behave as actual jurors and not as partisans, and that the arguments that are made are taken seriously. Xaqiiqdii waa lama huraan in sanadku raacdo maxkamad run ah, in guursigu u dhaqmaan sidii garsoorayaal dhab ah oo aanay noqon qayb ahaan, iyo in doodaha la sameeyo loo qaato si dhab ah oo markhaatiyaasha la maqlo iyo wixii la mid ah. Taasi uma muuqato inay tahay wax dhici kara. Hadday taasi dhici weydana, haddii sanadku qaadan waayo mas'uuliyaddiisa, taasi waxay cawaaqib xumo ku tahay dimuqraadiyadeena dastuuriga ah. McConnell waxa uu ogolaaday waqti dheeri ah oo loogu talagalay doodaha furitaanka. Dimuqraadiyiintu waxay rumaysan yihiin in waqti dheeri ah uu u ogolaan doono inay dacwadooda ka dhanka ah Trump hor keenaan maxkamadda aragtida dadweynaha. Adam Schiff waa maamulaha dacwadda xilka qaadista ee aqalka. A great many, perhaps even most Americans, do not believe there will be a fair trial. They don't believe that the Senate will be impartial. They believe that the result is pre-cooked. The president will be acquitted. Dad badan oo aad u tiro badan oo laga yaabay xitaa dadka Mareykanka badankood ma rumaysna inay jiri doonto maxkamad cadaalad ah. Ma aaminsana in sanadku dhexdhexaad noqon doono. Waxay aaminsan yihiin in natiijadu ay tahay mid horey loo sii kariyey. Madaxweynaha waa la bari yeeli doonaa. Ma aha inuu dembi lahayn, laakiin sababtu waxay tahay sanadka ayaa u codayn doona xisbi ahaan oo isagu leh codadka badan. Maamulayaasha dacwadda xilka qaadista madaxweynaha ee aqalka ayaa haysta 3 maalmood ay kaga doodi doonaan kayskooda ka dhanka ah Trump
ee aqalka sanadka iyadoo qareennada u doodaya aqalka cad loo qorsheeyey inay bilaabaan difaaca Trump maalinta Sabtida ah.